su-aasha xigtaya saa'ilkiina weydiinayaa wuxuu leeyahay haddii dhowr nin ay masaladii kufsiga wey dabcan maalmahan su-aalahooda way soo bateeno dhacdooyin dhacayba aada looga hadhadlay wuxuu leeyahay hadday dhowr nin kufsadaan gabar aan qaangaar ahayn muxuu xukunkoodu noqonayaa waa su-aasha qaybta koowaad hadday gabadhii dil ugu daraan dhammaantood ma la dilayaa waa su-aasha qaybteeda labaad gabadha la kufsaday haddii aan say cadaalad u heshay inaan ool oleeyahay maxay diintu ka qabtaa waa su-aal saddexaad maxaad kula dardaaran soo jeedin lahayd si falalkaa looga hortago waa mid afraad maxaa sababi kara labada su-aalood ee dambe su-aasha maxaa sababi kara iyo sidee baa looga hortegi karaa jumcadii hadda inaga tagtay ka horreysay ayaan khudbada kaga hadlay oo saa'ilkani isla boggan facebook uu ka helayaaye waxaan rajaynayaa halkaa inuu ka heli karo waxaanan filayaa inay ahayd jumcadii ku aadanayd 1 bishan 3 2019 ku jirno su-aasha ku saabsan ololaynta oo qofku inuu xaq u leeyahay cadaalad helo in laga shaqeeyo qofkii wax ka geysan kara hadday jirto cabsi ah qofka in cadaalad darra ay ku dhacdo xukunkii uu mudnaa iyo xuquuqdii uu lahaa qof kastoo wax ka geersan karaayo min baabi alamri bilmacruufi wanahyi cani ilmunkari waay xaqa oo loo gargaaro nabiga alai slam waxaa lagu ammaanay markii jibriil u yimid u horreysay waxyigii uu cabsaday khadiijo u yimid inaan kollaba wax dhib u soo jiidaya aynan ahayn waxay ku garatay inaka taxmilu alkalla wa taksibu almacduuma wa tansuru almadluum unsur akhaaka daaliman aw madluuman bay soo gelaysaa cadaaladduna waa mabda' sharci ahoo in baan ilaahay dadka jeclaysiiyey kuna ammaanay ciddii samaysa abaalgud weynna u ballanqaaday ciddii ka leexatana dembi weyn iyo ciqaab loogu goodiyey saa darteed cid kastoo ama kelimad leh ama riixi karta cabsi hadday jirta cadaalad darro in cadaalad la sameeyahay hadduusan isagu wax kaloo dembi iyo xaraama ku darin ajir buu ka helayaa su-aasha ku saabsan hadday dileen ma loo dilayaa dad jamaacaa qof hadday isugu tagaan ama sababtu kufsi ha la xiriirto ama yaana la xiriirine waa loo dilayaa cumarna waa kii lahaa low ana ahla sancaa'a tamaala-u hadday magaalo dhan dad degan ku heshiiyaan qof inay dulmi ku dilaan laqataltuhum jamiican dhammaan waa layn lahaa haddii aan sidaa la yeelinna dadka dhiiggoodii waxaa lagu bannaysanayaa qof walba koox baa lagu dilayaa qof la dilaya ma leh marka dilkaa badanaya saas darteed hadday dadkani ku heshiiyaan ay wadaagaan dilka qofka ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo ama kufsi ha yimaada ama yaanu imaanin hadday si xaq darraa wada jir ugu dilaan oy u wadaagaan dhammaantood waa loo qisaasayaa 2 iyo 3 keliya ma ahe 200 hadday yihiin 200 waa la dilayaa haddaan saa la samayninna nin walba suu qisaasta uga cararo dhiigga magtana loo qaybsado 10 iyo 20 iyo 50 bay isugu tegayaan oy ku dilayaan qofkii marka xikmaddii qisaasta laga lahaayee dadku inay ka cabsadaan dilkoo dadka badbaadiyaana ma imanayso haddaan dadkaa la laynin laakiin kuma xirna kufsi keliya waxay ku xiran tahay inay dadkani naf xaaraama oo macsuuma oo qisaastooda ay mudan lahaayeen hal qof hadday yihiin ay wada jir u dilaan su-aasha qaybteeda kale ee ugu horreysay haddan aan ugu dambaysiinay hadday ragii dumar kufsadaan muxuu xukunkoodu noqonayaa dabcan qadarka kufsigu siyaabo badan buu u dhici karaa koox baa samayn karta qof keliyaa samayn kara handadaadiyo hub baa la wadan karaa iyadoon handadaan ahayn baa laga xoogiyo itaal roonayn karaa magaalo gudaheed bay ka dhici kartaa oo qayladu gaadho ama meel duur cidla ay ka dhici kartaa tan magaalada ka dhacday qof la cabsiyoo laga awood batay ama sankaba loo saaray wax qofka suuxinaya ama afkaba la qabtay bay noqon kartaa meel dowlad xoog badan ka jirta iyo meel dowlad daciifa ka jirtay noqon kartaa masaa'ilkaasoo dhan dee su-aal kooban jawaabteeda kuma soo ururin karo
marar badan bay culimo ka hadleen, dhacdooyin dhacayna waa la xukumay. laakiin waxaan rabaa inaan idhahda guud ahaan laba xaala midun bay qaadataa. kufsiga aan dilka la soconini in magaalo gudaheedu ka dhaco iyo bannaankeeda inuu ka dhaco. dhinaca kalena wuxuu u noqon karaa laba qayboodo in hub iyo xoog iyo cabsiin lagu sameeya qofka iyo inaan lagu samaynin oo lagu xoogiyo itaal roonaado. haddii hub iyo wax lagu cabsiiya loo adeegsado magaalada bannaankeedana ay tahay masalatul xiraabay tegaysaa waxaa la yidhahdo inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna ee isweydaar inta loo gooyo oo la dilo oo la daldalo iyagoon waxba dilin bay tegaysaa. cirdiguna maalkii saa lagu sameynayay kama liita hadduusan ka sarraynin. haddii aynan intaasoo xooga magaalada dhexdeeda tahay, meel gurmadiya looga soo gurman kara dhawaaquna ay tahay, masaladii ijtihaadigeeda ee fuqahaday noqonaysaa. laakiin markaan ku soo koobo fiqiga shaaficiyadu, haddii meel qayladhaan laga gaadhi kara ay tahay, dowlad iyo nidaam xoog badanna uu ka jiro oo amniga sugi kara dadkana u gurman kara, baabu zinaa baa la marinayaa. dadkii qofkii hore u guursadee rajmi galaya, qofkii dumarkee la xoogayna xuquuq bay yeelanaysaa meherkeedii ou tegitaankaa loo tegaya iyo wixii kale dhaawacee soo gaaray. hadday dowladdu daciif tahay oon dowlad awood lahoo dadkii amniga sugi karta una gurman karta aynan jirin, ama hal qof ha sameeye ama ka badan ha sameeyee, waxaan rabaa inaan xasuusiyo fuqahadeenna shaaficiyada ee qawth iyo gargaar meeluu gaari karo waxaa laga fahmayaa inayna magaalada gudaheeda ahayn. halkaa istaagay nusuusta imaamu shaafici raximah allahu tacaala iyo aqwaasha imaamu nawowi markii uu ka hadlayo masalada waxay tilmaamayaan haddii hoggaanka iyo maamulka dowladeedii amniga sugi karaay uu daciif yahay, magaalada dhexdeeda lagu sameeye dhawaq kasta ha la maqle inay xaddulxiraaba qaadanayaan bu nusuusta imaamu shaafici fi lummi tilmaamaysa. imaamu nawowina meelo badan markuu soo timay wuxuu leeyahay meelaan qawdku gaari karin aw lidacfin ama dacfi uu jiro. dacfigaasi uu soo koobay waxaan filayaa wuxuu rabay inuu tacmiimiyo wada gaarsiiyo. haddii ama maamulku daciif yahay ama dadkan iyo qofkanba ay dacafo yihiin oo laga xoog badan yahay oo qadiyada xiraabadu nisbiga shaaficiyadu ay qabaan, oo dad badan hadday yihiinna xiraabo kuma ah oo iska celin kara, dad yar hadday ka od badan yihiin xiraabay noqonaysaadi buu tilmaamaya. laakiin naska imaamu shaafici fi lummi wuxuu tilmaamayaa aw dacfi sultaani, dowlad baa amniga sugta dadkana u gurmata asal ahaan. haddayna dowlad tabar la jirin magaalada dhexdooda ay xiraabadu noqonaysaa. marka masalada fuqahadeenna markaa xakamta iyo qadaha fadhida ee shaaficiyadu inay dib u milicsadaan oy fiiro u yeeshaan ka shaaficiye ahaan waa soo jeedin laha.